kal markii la joogaba kuwani waa qoom ka soo bixi doona cidhifka dunida ee waqooyi bari ifkana waxay ka ridi doonaan argagax abadi ah oon weligii tirtirmi doonin waa duul adduunka u qaabilsan arbushka iyo qaribaada dilka boobka iyo muquunintuba waa shaqadooda ay ku caanbaxeen malaayiin qof ayay hal mar xasuuqi doonaan iyagoo adduunkoo dhan cagta marinaya waa qoom fasahaad badan haddaba yay yihiin ya'juuj iyo ma'juuj goorma ayay soo bixi doonaan sidee ayay u eg yihiin waqti xaadirkan xalkee ayay ku xidhan yihiin imaka sidoo kale markay soo baxaan qaab nooceeya ayay u dhiman doonaan soo dhow mar kale daawade waa anigoo ah Nadira Saciid si fiican ii dhegeyso laga yaabaa inaanad mar kale arag haddaba isoo follow garee imaka iguma khasaari doontide like saar videogan sababtoo ah dhiirigelin bay ii noqonaysaa mahadsanid ya'juuj iyo ma'juuj waa qoom sharkooda uu badan yahay waxayna inagula nool yihiin adduunka waa qoom fara badan dhulka iyo arladana fasahaadin doona markay soo baxaan soo bixidoodu waa mid ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee ka horeeya qiyaamaha waayo ya'juuj iyo ma'juuj yacni yay yihiin waa laba qoom oo ka tirsan duriyadii nabiyullaahi aadam calayhi salaam qoomkani markay soo baxaan dhiig badan ayay ku daadinayaan adduunka heer waxay gaadhayaan dadka adduunka jooga oo dhan markay dilaan waxay odhanayaan laga yaabaa inay jiraan dad cirka ku nool amba xagga sare jooga kuwaasna aynu soo dilno leebabkii ay siteen bay kor u wada tuurayaan ilaahayna wuxuu ku soo celinayaa iyagoo dhiig leh waxayna u qaadan doonaan in dadkii xagga sare ku noolaana ay soo dileen haddaba qoomkan shartoodu ay badan tahay sidee bay u eg yihiin shakliga iyo noocay u eg yihiin siduu nebigeenu inoo sheegay waa dad wejiyo waaweyn indhahooduna yaryar yihiin sidoo kale timahooduna waa madow casuusi ku jirto goorma ayay soo bixi doonaan ya'juuj iyo ma'juuj waqtigee ayuu ku beegan yahay xilligay soo baxayaan dadka badankoodu waxay u haystaan mar kaliya oo aakhir sabanka ah inay soo baxayaan balse nuxurka dunuusta sooyaalka laga bartay ayaa taabeeninaya soo bixitaanka yuug iyo yamaayuug waa siday Soomaalidu u taqaanee waa hirar kala dambayn doona oon hakad lahayn maadaama ay fara badan yihiin dulqarnayn waa mid ka mid ah afartii hogaamiye ee dunidoo dhan xukumay dacal ilaa ka dacal kuna soo wareegay adduunka oo dhan haddaba berberyaha ka mid ah dulqarnayn wuxuu socdaal ku gaaf wareegay cidhifyada dhulka galbeed ayuu ku horeeyey kadibna bari gunti ayuu soo taabtay haddaba dhankaas markuu dulqarnayn u kacay wuxuu la kulmay duul amba dad af adag oo aanay bulshooyinka kale luuqadooda fahmaynin dadkaasina dulqarnayn waxay uga cawdeen inuu ka caawiyo siduu xayndaab ugaga samayn lahaa duul kale oo dhib badan oo la yidhaahdo ya'juuj iyo ma'juuj intaas kadib dulqarnayn wuxuu dhisay teed bir iyo maar ka samaysan oo uu ku owday afaafkii u dhaxeeyey jarka labada buurood halkaasoo ay kasoo gudbi jireen yuug iyo yamaayuug sidaasna wuxuu ugu sheegay teedkani inuu yahay naxariis dhanka ilaahay ka timi oo addoomihiisana uu kaga hor joogo arbushka iyo fasahaadaha yuug iyo yamaayuug balse hadalkaana wuxuu ugu sii daray in maalin maalmaha ka mid ah teedkani uu dhulka la simi doono ya'juuj iyo ma'juujna ay soo bixi doonaan maalin kasta oo qoraxdu soo baxdo halkaynu inagu kaga mashquulsanahay nolol maalmeedkeena iyagu waxay u soo foof tagaan una soo shaqo tagaan siday gidaarka u jabin lahaayeen waxayna qodaan gidaarkaas maalin kasta oo alla soo geliyo balse markuu gabaldhacu soo dhowaado ayay ka tagaan oo hoydaan iyagoo midba midka kale uu ku leeyahay inaga mariya beri ayaynu halkaa kasii wadi doonaa balse maalinta xigta markay soo noqdaan waxay u soo noqdaan gidaarkii oo sidii siiya darbigii ay shalayo dhan qodayeen oo sidii hore kaba sii adag markaas ayay haddana dib u bilaabaan jabintiisa laakiin maalin ayaa waxa dhacaysa inay isku yidhaahdaan ina mariya beri ayaynu halkaa kasii wadi doonaa insha allah subaxnimada markay ku soo noqdaan waxay arkayaan gidaarkii oo sidii shalay ay kaga tegeen ah runtii waxay ku noqonaysaa tacajab degdeg ayay usii qodayaan iyagoo inta dhimana dhammaystiraya sidaana kusoo bixi doonaa way soo baxayaan farabadnaantoodana ciiddii dhulka taalay ayaan la arki doonin kuwooda ugu horeeya waxay soo mari doonaan webi la yidhaahdo tabariya waxayna cabbayaan biyihii ku jiray haradaas way dhammaynayaan dhammaan biyaha iyagoo midh aan kaga tegaynin kadib kooxdooda ugu dambaysa markay soo gaadhaan haradaas waxay odhan doonaan xilliyada ka mid ah meeshan waxaa ku jiri jiray biyo
taasina waxay ku tusaysaa farabadnaantoodu intay la eg tahay. waa hirar kala dambeeya oon joogsi lahayn, waxay cagta marinayaan wax kasta oo ishoodu qabato. dad iyo dunyaba dhulka ayay la simayaan iyagoo baabi'inaya shay kastay soo gaadhaan. heer waxay gaadhi doonaan kuwooda ugu dambeeya ay waayaan waxay dilaan. xilligaas waxaa jooga dhulka nebi ciise calayhi salaam. kadib nebi ciise iyo mu'miniinta la socotaa waxay fuuli doonaan buur iyagoo ilaahay ka baryi doonaa inuu ka qabto qoomkan adduunkii baabi'iyey oon waxbaba reebayn. intaas kadib ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo diri doonaa, wuxuu ku sallidayaa ya'juuj iyo ma'juuj dirxi aad u yaryar. cayayaankaasi wuxuu ka geli doonaa dhegaha iyo meel kasta ilaa iyo marka ugu dambaysa dhammaantood ay dhiman doonaan. 300 kun wax yar ayaa inooga dhiman. haddaba sii shargaree fideogan una dir 3 qof oo ka mid ah asxaabtaada. waa anigoo ah Nadira Saciid. waad ku mahadsantahay haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. like saar fideogan. waa inooyo mar kale iyo muuqaalka kan ku xiga.